markaliya ayaa dadku ay indhaha ka qaadeen oo ay telefishinada ku arkeen dib ugu soo laabashada Alan Bridge oo caan ka ahaa wadanka Great Britain gaar ahaan idaacadda BBC-da iyo waliba muuqaal baahiyaha BBC intuba. Alan Gordon Bridge oo ah actore filimada qaar sameeyay, shaacirool, wartabiye iyo waliba codkar dadku hadal jeedintiisa aad ay ugu riyaaqaan marka ay cod ahaan maqlaan. telefishinka BBC-da ayaa laga arkay isaga oo markaliya soo galay shactiroolaha Alan Bridge, laakiin dad badan ayaa isweydiiyay dib ugu soo laabashada ninkan iyo saameyntiisa. dadka yaqaana Alan Bridge waxay ku tilmaamaan nin furfuran, qosol badan, wartabiye ah, ragga iyo dumarkana ay u siman yihiin, kana wada qoslin kara. markii ugu horeysay ee BBC-da uu ka soo muuqday Alan Bridge, shaaciroolkaas wararka tabiyaha ahaan jiray, balse waayihii dambe dadka ka qoslaya ayaa ahayd 9 Agost 1991. telefishinka BBC-da ayuu ku biiray 19 bishii Janaayo 1994, taasoo ka dhigan in 24 sano uu la shaqeynayay muuqaal baahiyaha BBC-da ee caalamiga ah. waxa uu yiri 20,000 oo email ama ciwaan ayaana soo gaartay, taas oo iga dalbaday in aan dib ugu soo laabto shaqada BBC-da oo muddo uu ka maqnaa. waxa ninkan ay dadka sheegaan in uu yahay mid dad badan ay ku xirnaayeen barnaamijka This Time ee soo gala 3 saac iyo bar habeenkii ama 9:30 daqiiqo fiidnimada waqtiga dalka Ingiriiska. waayeelkan oo 24 sano BBC-da la shaqeynayay laamaheeda kala duwan ee idaacadda la iska maqla iyo muuqaal baahiyaha la iska daawadaba, waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay dib ugu soo laabashadiisa. majalada Daily Mail ayaa warbixin ra'yi aruurin ka qaaday dad ku soo hadlay qaybta Twitter-keeda. waxa uu qornaa sidan: wow, waa faraxsanahay haddaan mar kale aragnay dib u soo laabashada Alan Bridge. sidaas waxa yiri nin la yiraahdo Danger. qof kale oo isagana sheegay in uu jeclaa dib u soo laabashada Alan Bridge ayaa ku micneeyay jacaylkii iyo maxabadii guud ee shactirada ayaa BBC-da dib ay u heshay. waxa ugu xiisaha badnaa waxay ahayd markii la arkay oo dadku ay telefishinka ka arkeen muuqaal ahaan Alan Bridge oo soo galay. wuxuu dadka ka qoslayay sida suuliyada ama musqulaha ku yaala tareenada dhexdooda ee dadka safarada markay ku guda jiraan u xaajo gutaan ayuu jelitaan u sameeyay. mar kaliya baa la wada daato qosol dadka daawanaya oo idil. ninkan ayaa ku dhashay Norwich oo ka tirsan dalka Ingiriiska. qaybta Wikipedia ayaana laga waayay taariikhda ninkan oo aan la soo gelin xilliga uu dhashay, aabihii, magaciisa, hooyadii, inta caruur uu dhalay, taariikhiisa kooban ee shakhsiyadda. gabadha wariyaha ahayd ee barnaamijka ku soo dhaweysay Alan Bridge ee barnaamijka This Time ee Alan Bridge ku soo dhaweysay ayaa muuqaal la qabtay. waxa la arkay isaga oo muuqaalka ayaa kaamiradu ku xaday isaga oo qayb ka mid ah jirkeeda isha la raacay, taas oo hadda baraha bulshada aad u qabsaday.